garoonka dareeriska ee magaalada Hargeysa ayaa lagu soo gabagabiyay tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan. Tartankan oo ay ka soo qayb galeen 12 kooxood. Ugu dambeyn waxa iskugu yimid ciyaartii kama dambaysteed labada kooxood ee Elman iyo Sunpower. Kulankan ayaa mid aad u xiiso badan daawadeel fara badanna ay ka soo qayb galeen daawashada kulankan. Labadan kooxood ayaa isku dhaaf waayay barbardhac iyadoo ugu dambeyn loo dhigay gool kulaad. Waxaana ay guushu ku raacday kooxda Sunpower. ujeedada tartankan iyo qabku u socday waxa ka hadlay gudida garoonka uu kamid yahay Cabdiraxmaan sidoo kale tartanka waxa soo khatimay oo soo gabagabay gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Khadar Jilaal Jaamac waxaana hadaladoodii kamid ahaa sidan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim salaatu wassalaam ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam marka hore Ramadaan mubaarak dhamaantiin Ramadaan oo gabagaba waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan madaxda ka soo qayb gashay xiritaanka koobka dareeriska ee Ramadaantii socday oo maanta gabagaba final taagan waxaan aad ugu mahadnaqayaa gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliland Khadar Jilaal oo nagala soo qayb galay gudoomiyaha oo madaala ah oo garoonkii saddexaad maanta ka soo qayb gala ah finalada soo xirayo inta markaan ka gudbo haddaan warbixinta koobka galo koobkan wuxuu ahaa koobkii loo qabtay eeda dhammaan 8 degme ee caasimadda dhalinyarada ka ciyaarta ee kala ah heerka koobaad oo ciyaara kooxaha caasimadda u ciyaara koobkan wuxuu soo maray marxaladii bisha oo dhan wixii la ciyaarayay maanta ayuu gabagabiyay waxaana maanta isku soo gabagabada ku soo beegmay oo isku hirdiyay ciyaarta xaqiiqda dambe ka socota kooxaha Elman iyo Sunpower ciyaartan waxaan noo soo xiri doona oo hadalka xagga dambe ka siin doona gudoomiyaha Sharfan Khadar Jilaal sida awgeed waxaan maanta halkan farxad noo ah koobkan inuu 12 kooxood ay ka soo qayb galeen maanta inuu gabagab yahay oo si nabada oo qurux badan oo habsamiya oo ay wasaaradda ciyaaruhuna ay nala qayb ka ahayd xiriirku qayb ka ahaa nala ogaayeen madaxda oo dhan naga qayb galayeen waxaan kale oo u mahadnaqayaa gudida qabanqaabada garoonka oo si qurux badan oo karaamaysan uga soo habeysay waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadcelinayaa TV-ga Astaan oo isaguna maanta nagala soo qayb galay finalka waxaan leeyahay dhamaantood waa mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye Khadar Jilaal wassalaamu warahmatullahi wabarakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina nabiyina maxamed ilaahay baa mahadleh alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan ku suganahay garoonka Saacad Stadium ee Egas Dareeriska garoonkaasi oo ka socday koobka bisha Ramadaan A iyo B waa garoonkii saddexaad ee isla maanta 3 bisha afraad aanu ka qayb galno taas waxay ku tusaysaa inaan dhalinyarada u heelanahay shalay waxaan joognay Beligwedle daraad waxaan joognay Cadaadley oo koob ka soo xidhnay maanta waxaan joognay Hargeysa garoomadeedii alxamdulilaahi rabbil caalamiin xiriirka kubadda cagta Soomaaliland waxa ka go'an goor kasta iyo saacad kasta iyo meel kasta iyo gobol kasta iyo xaafad kasta inaan dhalinyarada dhiiri gelino garab istaagno u hiilino taas waa qorshihii iyo nidaamkii noo doortay alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta waxaan ku suganahay Egas Dareeriska Saacad Stadium oo gabagaba tahay waan u hambaleynayaa kooxda koobka guuleysatay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa kale oo u bogaadinaya iyagana gudidii qabanqaabinaysay tartanka bisha Ramadaan ee labada nooca BDA-da saxaafadan u hambaleynayaa cid kasto ciidamada kala duwan ee bilayska iyaguna maalin walba ku sugan oo xeradooda u dhowday baan iyagana u hambaleynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh